iyadoo muddooyinkii u dambeeyay wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Awdal ay waday talaal xagga xoolaha gaar ahaan adhiga oo iskugu jira idaha iyo riyaha ayaa maanta isku duwa wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Awdal Dr. Bulbul isagoo ku sugan xafiiskiisa waxa uu wareysi siiyay TV-ga caalamiga ee Royal waxaana uga waramay talaalkani dadkii gobolka ka gashay bishii ilaa inta socda inta aan ka tagnay 2 bilood iyo 7 maalmood waxaan qorshaysan talaalan hawladan 300 oo kun oo neef oo isku jira iyo riyo waxaan ka talaalayaan labada cudur oo lahayn daawo oo ah susunka iyo furuqa ariga ku dhaca hawshan way soo dhowdahay bishii horeysay wixii qabteen ee daawooyin iyo talaal waxay ku qoran tahay qoraalkan ku soo gudbiyay sidoo kale mar labaad waxa uu ka hadlay dib habayn uu ku sameeyay xafiiskiisa iyo dhismayaal cusub oo loo dhisay iyo waliba gaadiid gaashaaman oo wasaaradda xanaanada ee xoolaha ay u soo kordhisay si ay ugu adeegaan bulshada xoolo dhaqatada ee gobolka Awdal sidoo markii hore waxa dhisay hay'adda Kofi 1994 waxaan u talgashay khatiibtii baahanaaneed inay isticmaalaan shay barahan sida Afrika iyo laamaha ay tiro sameeyay midin sanadkan lixdii boqol sano soo sagashay in wasaaraddu ay dayactirto waxa kale oo la dayactiray kan rugti caafimaadka ee dila taan maadada askale wasiirka iyo agaasimaha guud wadada dadaal badan u galay in xafiisyada gobolada iyo degmooyinka kuma dayactiro waxa isagana aan wax ka weydiinay madaxa talaalka mobile teamka Siyaad Cumar Janagale oo ku sugnaa goobta talaalka ay ka wadeen waxaana uu nooga waramay noocyada talaalkani hadda shaqadan aan gacanta ku haynaa waxa weeye waa talaalkaas oo ka socda Soomaaliland oo dhan talaalkaas oo isku jira kii susunka iyo kii furuqa oo laga talaalayo idaha iyo riyaha kuna haati xoolaheenu ay u baahnayeen inta ka bacdi anigoo ka faa'iideysanaya jaaniska ay holadan TV nasisay maanta soo booqata anagoo goobtii aan ku shaqeynay noogu yimid waxaan dadweynaha ama dadka Soomaaliland ama gaar ahaan gobolka Awdal degan waxaan ka codsanayaa inay ka faa'iideystaan waxa iyaguna dhankooda uga mahad celiyo xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Awdal iyo hawlwadeennada talaalkani dadweynaha deegaanada ay ka wadeen talaalkani dhaqaatiir caafimaad oo noo timiday oo xoolaha noo talaashay si fiican ayaan hay'adda iyo qaybta caafimaad beeraleydana waan dhahay qodobada nimanka dib nooga yar wada seexday magacayga waxa dibada talaalkan aad iyo aad baan ugu baahnayn xoolaha aad waxaan ku noolahay degmada agagaarka degmada ujeed aad bay ugu mahad celinayna talaalka wanaagsan tahay ariga waxa ay diga ujeedka badiyaa xanuuno ayaa bil ugu tagay adigu waa ilaa iyo 150 isku soo wada duubo talaalkani ayaa ahaa mid ay u baahnaayeen dadweynaha ku dhaqan gobolka Awdal oo u badan dad xoolo dhaqata waa Axmed Barakaale shabakada wararka ee Boorama online magaalada Boorama